tusmada casharka aan qaadanayno waxaa ugu horeeya qeexidda naxwaha qodobka iyo qaybihiisa kelida qodban iyo wadarta qodban tilmaame iyo noocyadiisa meeleeye iyo sida uu u shaqeeyo astaanyaabeedka iyo sida ay u dhacdo iyo weydiimaha casharka oo u dambeeya su-aasha inoo ku horeysaa waxay tahay wuxuu yahay naxwe waa maxay naxwe naxwe waxaa marka lagu qeexaa waa xubin muhiim ah taas oo saldhig u ah afka luuqadda naxwuhu waa qaab dhismeedka afka qaab dhismeedka afkana waa ardaygu waa odhan karaa saldhigga afkana waa odhan karaa labadaba waa ay ku saxantaa naxwuhu waxa uu leeyahay xeerar wada shaqeeya laguna barto sida loogu hadlo loona qoro qofkii si uu afka fikraddiisii iyo wixii uu hindisay uu u qoro hadalkeedana uu u hagaajiyo waxaa gundhig u ah oo uu ku bartaa naxwaha waxaa inoo ku horeeya marka qodobada aan ku qaadanayno oo kale qodobka afka naxwaha marka qodobka afka naxwaha waxaa lagu qeexaa waxa uu ka mid yahay qaybaha hadalka wuxuuna raacaa magaca wuxuu ka raacaa gadaal xarafkii goorta la qoro magacii qodobku gadaal buu ka raacaya shaqadiisuna waxay tahay qodobka inuu ka dhigo ereygii ama magacii shaygii la raadinayay wax la isla garanayo inuu ka dhigo tusaale ahaan haddii aynu nidhaahno wiil oo kale wiil haddaan dhahno wiilkaas cid u yahay markaa lama garanayo qodobku wuxuu marka inoo sheegayaa inuu wiilkii ka dhigo wax la garanayo marka waxaa la raacinayaa qodob wuxuu noqonayaa markaa wiilka waxay ka dhigan tahay markaa adoo farta ku tilmaamay bay markaas ka dhigan tahay naxwaha marka qodobka qaybta faa'iidada uu ka yahay waxa weeye inuu shaygii ka dhigo mid la isla garanayo qodobada marka afka naxwe waxa ay ka kooban yihiin 7 xaraf oo halkan inoo ka muuqda waxaa marka loo soo gaabiyaa 7 qodob adahasha ka taga si aysan ardaygu kaaga kala dhumin waa inaad u soo gaabsataa adahasha ka taga marka waa a da ha sha ka ta iyo ga waxay marka la shaqeeyaan qodobadu wadarta iyo kelida marka wadartuna waa ashyaadu markay badan yihiin oo 1 iyo 2 iyo wixii ka sii badan ay yihiin keliduna waa 1 keliya wey marka qodob magaca marka lagu dhawaaqayo wuxuu qaarkiis u dhawaaqaa lab qaarna waxa uu u dhawaaqaa dhadig aan aragno haddaan dhahno far waxay u dhawaaqaysaa hab dhadig ah bay u dhawaaqaysaa haddii aynu dhahno qude haddaynu dhahno qude waxay u dhawaaqaysaa iyaduna hab lab bay u dhawaaqaysaa dhawaaqaas marka carabkaa uu samaynayo baa waxaa la rabaa inaad ku salayso qodobada afka naxwo oo 7 sidaan baa marka loo kala qaybiyey labku marka wuxuu qaadanayaa afartaas waa a ka ha iyo ga halka dhadigu uu qaadanayo sha ta iyo da siday marka u qaadanayaan waa arkaynaa haddii ilaahay tusaale keli qodban baa marka inoo ku horeysa kelida qodbani waxa weeye magacu markuu keligiis marka hore yahay qodob baa markaa la raacinaya tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa haan markaan soo qaadano oo aad qodobka raacinayso waa in aad marka hore go'aansataa shayga meesha kuugu qoran ereyga meesha kuugu qoran ma wadarbaa mise waa keli goortaa ogaatid waxa uu yahay kadib baa waxaa qaadanaysaa qodobka aad raacinayso adiga oo raacaya xeerka ah lab ahaan miyuu ugu dhawaaqayaa ereygan mise dhadig ahaan buu u dhawaaqayaa haan marka ardaygu markuu rabo qodobku markuu raacayo marka qodobada raacaya maxay noqonayaan haanta bay noqonaysaa soo ma sha marka ma noqon karo haan sha oo kale ma noqon karo maxaysan kaloo noqon karin haan da oo kale ma noqon karo wuxuu noqonayaa markaa af marorsan buu noqonaya marka noqonaya af qabaluus buu markaa noqonaya haddii marka aad af qabaluus ku hadasho qoraal qabaluus baa markaa ku
ku qormaya si marka luqadaadii iyo qoraalkaaga ay isu waafaqaan waa in uu waxa aad ku dhawaaqaysaa ay saxayn ardayga marka waxaa loo diidayaa inuu qodobkii halkaan dhigo tusaale ahaan haanta qodobkan baan isla qaadanay inuu raacayo soo ma inaad sidaa dhahdid lama rabo waxaa la rabaa in aad bannaanka ula baxdo tusaale ahaan oo aad raaciso siday u qormayso waxay noqonaysaa markaa haanta waa in saas oo kaleeto aad qodobka markaa u raacisid kadibna aad muujisid qodobka aad raacisay si uusan kaaga khaldamin waxaan sidaa u leenahay waxa weeye xarfo waxaa jira goorta qodobka la raaciyo isriix ka dhacayo oo xaraf meesha laga saarayo tusaale hal oo kale haddaynu soo qaadanno hal haddaan soo qaadanno qodob raacino waxay noqonaysaa hasha laakiin dee sow qormaysaa markaa hasha si ay u saxanto marka waa inaan qodobka raacino saasay noqonaysaa la'dii marka meeday xarafkii la'da meesha waa laga saara isriix baa marka halkaa ka dhacay xaraf baa meeshii laga saaray xarafkana meesha soo galay si marka taasi aysan qaladkaas u iman waa in uusan ardaygu uusan saan oo kale isu hordhigine uu sameeyaa marka uu qodobka raacinayo inuu shaygii ama xarafkii uu mar kale qoro tusaale ahaan farta oo kale mar kale inaad qodhid baa marka loo baahan yahay waxaa ku xiga marka wiil tusaalaha qodbana u horeeya waxa weeye wiil qodobka waan isla go'aansanay waxa weeye ka marka waxay noqonaysaa wiilka loox buu marka hore ahaa qodobka aan raacinayna marka waxa weeye intayna qodobka raacin loox marka maxay tilmaamaysaa loox marka loogu dhawaaqo waxay sheegaysaa keli hadday tahay marka qodobka aan raacinayna muxuu noqonayaa a baa raacaysa looxa bay markaa noqonaysaa haan baa marka meesha ku qoran iyadana qodobka ku habboon muxuu noqonayaa haanta waa ina markaa aynu calaamadda la midka dhinaca uga gudbinaa si aysan u qaldamin marka haanta markaa ay ku noqoto waaya tusaalaha kana wuxuu ku tusayaa wadarta qodban marka hore waxaynu qodobka gelinaynay wuxuu ahaa oo raacinaynay wuxuu ahaa keli haddana waxaynu rabnaa inaynu isla aragno wadarta marka wiilal baa inoo qoran wiilal marka qodobka raacaya wuxuu noqonayaa wiilasha hangoolo baa inoo qoran qodobka raacaya wuxuu noqonayaa markaa hangoolada ruugag baa inoo qoran qodobka raacaya wuxuu noqonayaa ruugagga marka inta aynaan qodobka raacin waxaynu isla go'aansanay inaynu akhrino xarafka kadibna aynu go'aansano inuu keli yahay iyo inuu wadar yahay hadduu marka wadar yahayna wadar ahaantiisa qodobka u raaci ama uga saar haddii uu keli yahayna keli ahaantiisa qodobka u raaci ama markaa uga reeb qodobka tusaale markaan leeyahay qodob ha laga reeb ama hala raaciyo waxaa lagu soo qori karaa su'aal weyn marka su'aasha lagu weydiinayo iyagoo qodob raacsan yihiin oo waxaa lagu oran karaa raaci xarfaha hoos ku qoran ama magacyada hoos ku qoran qodobka ku habboon tusaale ahaan waxaa laynoo soo qoray far baa laynoo soo qoray waxaa kaloo laynoo soo qoray ul waxaa la yidhi marka waxaa raacisaa qodob maxay noqonaysaa markaa farta tanna maxay noqonaysaa usha xarafkii marka meesha waa ka baxay soo martid iyagoo marka qodob ku jirana waxaa lagu oran karaa qodobka ka saar tusaalahaan taasna haddaan soo qaada maxay noqonaysaa waxaa laynoo soo qoray haamaha waxaa laynoo soo qoray haamaha qodob baa raacsan laanta qodobkii waa raacsan yahay marka ardaygu marka qodobka ka saaraya waxaa la rabaa in aad sida hadhow u qormayaan aad hagaajiso markaa tusaale ahaan haamaha hadday ahaayeen adoo aan wadar keli ka dhigin wadartooda iyagoo ah baa ka saaraysaa qodobka waxay noqonaysaa markaa haamaha bay ahayd markaa maxay noqonaysaa markay noqonayaan haamo bay markaa noqonayaan fiir marka xarafka a'da ah waxaa meesha bedelay markan waxaa bedelay xarafka o baa bedelay marka sidaas bay ahaanaysaa waa in marka ardaygu uu go'aansadaa qaabka uu qodobka u raacinayo iyo sida uu qodobka uga saaray tusaalaha labaad marka wuxuu ina tusayaa shaxan labadii dhinacba ay ku jiraan kelidii iyo iyadii oo qodban wadartii iyo wadartii oo qodban marka waxaan ku hormaraynaa kelida keli marka waxay noqonaysaa halkaa waxay noo qoran ri waxay noqonaysaa markaa iyadoo qodban rida faas iyadoo qodban waxay noqonaysaa faaska sac iyadoo qodban waxay noqonaysaa saca laan iyadoo qodobkii leh waxay noqonaysaa laanta kursi iyadoo qodobkii leh markaa raacay maxay noqonaysaa markaa kursiga wadartana sidoo kale iyadana aynu eegno wadartu maxay noqonaysaa markaa iyaduna warmo baa inoo qoran bedeli mayno inagu waran ka dhigi mayno maxaan ka dhigaynaa sideeda iyadoo ah baynu qodobka raacinayna maxay noqonaysaa markaa warmo warmaha ceelal ceelasha bay markaa noqonaysaa iyaduna gawaari gawaarida tuug tuugo baa qoran fiir marka haddii marka shay intay kaala cararaan kuwa hadhow aa aragto tusaale ahaan waxaad dhahaysaa marka tuugta miyaa odhanaysaa mise waxaa odhanaysaa tuugada baa odhanaysaa labadaa marka hadba qaabka ugu dhawaaqdo carabkaagu bay wadar ku noqonaysaa tuugna waa la odhan karaa tuugna haddii loogu dhawaaqo way badan kartaa markaa
marka adigu hadba sida u dhawaaqdo ardayga markaas oo kale to waxa la go'aansadaa in aan xaraf noocaas oo kale ama laba jawaabood oo kale yeelanayo si uusan u wareerin aan lagu keenin marka inta badan waxay macallimiintu marka ka taxadaraan haddii ay dhacayso in xarfaha ardayga su'aasha la weydiiyo in hal su'aashaas hal waji kaliya uu u banaayay haddii kale ardaygu waa jahwareeraya taasoo kale marka laguma keeno laakiin tusaalaha hadda way inoo ku qoran tahay meesha iyada aryo baa meesha ku qoran marka qodobka raacaya marka wuxuu noqonayaa aryaha buu markaa noqonaya shaxankaasna marka wuxuu ku tusayay kelidii oo qodbaneed iyo wadartii oo qodbaneed way waxayna ku xigaa qodobkeena ku xiga wuxuu noqonayaa tilmaame marka waa qayb ka mid ah qaybaha hadalka wuxuuna haddii la ku ran yahay tilmaan cad ka bixiya hadalkii qofku ku hadlay tilmaamo wuxuu marka noqonayaa qayb hadalkii ka mid ah wuxuuna ka bixiya tilmaan cad hadalkii marka lagu hadlay marka noocyo badan oo tilmaamo ah baa marka jira marka tusaale ahaan haddii lagu yiraahdo kaas oo kale kali baa la tilmaamay laakiin waa durugsan tahay kan haddii la yiraahdana kali baa la tilmaamay laakiin waa dhowda kuwaas haddii la yiraahdana waxay noqonaysaa wadar baa la tilmaamay durugsan kuwaan haddii la yiraahdana wadar baa la tilmaamay laakiin dhow marka kuwaas dhow oo kale oo fudud marka laga yimaado waxaa jiri kara shan nooc oo kale oo tilmaama uu dhici karo iyadoo weer marka ama jumlad la xiriidho oo ku jira shanta nooc marka waxaa ka mid ah tilmaame tusmo tilmaame ahaanshe tilmaame lahaansho tilmaame tiro iyo tilmaame weydiimeed shantaas bay marka noqon karaan marka shantaasba tusaalahooda iyo qaabka ay u dhacayaan baan rabnaa marka inaynu aragno waaya waxayna ku horeeya tilmaame tusmo habka waxa lagu tilmaamayo iyadoo marka farta wax lagu godayo oo lagu tusayo waa hab tusma weliga ha ku dayan baa lagu yiri ninkan weliga ha ku dayan ninkan baa lagu yiri marka waa lagu digay Soomaa habka wax lagu tusay kan marka ereyga ah wuxuu sheegayay ninkii lagaaga digayay weey marka waa tusma hab tusma iyadoo weer la xiriirsan waxa ku xiga tilmaama ahaanshe markaan shaygu waxa uu isagu yahay baa laga hadlayaa aan cid kale laga hadlay marka waxay noqonaysaa waxa la yiri tusaale ahaan gabar yar baa oyday gabar baa oyday gabadha oyday waa gabar imisa la gabadha oyday inay marka sifada meesha ka muuqato waxay noqonaysaa marka oo tilmaanta ahi yar bay noqonaysaa gabar yar baa oyday tilmaame lahaansho baa ku xiga tilmaamaha lahaansho marka isagu wuxuu yahay qofkaani waxa adigu leedahay ka hadlimayo wax cid kale leedahay ka hadlimayo wuxuu isagu leeyahay buu ka hadlayaa tusaale waxaan dhowrayaa sharafta waalidkay qof baa tirniyo in keen aynu halka ka baxno oo arrimo damacday inaad meel aadaan markaasuu isagoo waalidkiis tixgelinaya muxuu ku yiri maya aniga waxaas iguma haboona maxaa dhacay baa tiri markaasuu wuxuu waxaan dhowrayaa sharafta waalidkay marka ereyga kay oo hoosta ka xariiqan ahaanshihii buu marka lahaanshihii qofkaas uu tilmaamaya tilmaamo tiro baa ku xigta tilmaamada tiro marka waxay noqonaysaa iyaduna in tiro ahaan wax lagu sheegay iyadana ninka shanaad waa adeer baa la yiri ninka shanaadi waa adeer marka nimanka halka marayo kala 1 2 3 4 5 oo kale adigu ma taqaanid marka wuxuu ku yiri ninka shanaadi waa adeer waxa ugu dambeeya marka tilmaame weydiimeed isaguna qaabkaas oo kale uu u sameysmay marka waxa la fartee ku xanuunaysa qof fara badan buu leeyahay fartee ku xanuunaysa ama inta qof soo dul istaagtay 10 akhrisanaya waxa tiri 10 keebaad akhrinaysa way waxaan arkaynaa iyaduna meelayo isaguna waa qayb ka mid ah hadalka qaybaha hadalku ka mid yahay wuxuuna meelayaa ama uu waxa weey tilmaamaa shayga la raadinayo meesha uu yaalo falka uu marka la shaqeeyaa inta badan marka meeleeye waa erey ka mid ah qaybaha hadalka waxa uuna la shaqeeyaa falka meeleeye waxa uu cadeeyaa shayga la raadinayo ama cidda la raadinayo meesha ay ku sugan tahay marka meeleeyaashu marka waa badan yihiin marka shay oo kale uu meesha inoo yahay tusaale markuu shay meesha inoo yahay halkaan oo kale shayga korkiisa meel bay noqon kartaa meelayn hoostiisa hortiisa ama gadaashiisa oo kale saas oo kale meeleeyaa aan noqon kartaa kuwaas waa kuwa fudud laakiin afartan xarfaha ahi waa afarta ugu shaqada badan marka waxa la yiraahdaa waa ku u ka iyo la waa meeleeyaasha ugu shaqada badan tusaalayaal marka meeleeyaashaas inoo sheegaya baynu halka ku arkaynaa waxay marka sheegayaan adeer cali furaha miiska korkiisa saaran siibalgeey marka korkiisa waxay noqonaysaa meeleeyihii dhiisha aqalka gudihiisa taal iikeen marka gudihiisa waa meeleeyihii wiil baa gaariga ku jira ku'du waxay tilmaamaysaa meeleeyihii ardayga sabuuradda horteeda taagan sii qalinka baa lagu yiri marka sabuuradda horteeda marka horteeda waxay noqonaysaa meeleeyihii hooyo u sheeg su'aal baa qof u sheegtay waxaas dhacay qofkii ka wuxuu ku yiri hooyo u sheeg buu marka u sheeg waa meeleeyihii barni baa aabe la joogtaa la yiri la iyaduna maxay noqonaysaa meeleey faras baa guriga gadaashiisa jooga
gadaashiisana waa meeleeye waxaa ku xiga markaa astaan yaabeed astaan yaabeed marka waa ergig argagax yaab amankaag dhafoorahays waxaasoo dhan bay noqon karaa marka waa yaab laba hab buu kugu iman karaa in qof kaa naxiyo adiga adoo iska baraad la iyo in arrin adigu aad la yaabto markaa oo maskaxdaada ka dhaadhici weyda aa aragto calaamadda marka astaan yaabeedka ah baa loo adeegsadaa marka argagaxo ama yaabku waa isku mid waana astaan timaadaa hadalka marka si adag loo yiraahdo hadalka marka si adag loo dhaho bay imaanaysaa waxaana la dhigaa hadalka dhammaadkiisa tusaale way oo way baa tiri farta intaa saasoo kale tiri waa maxay fursadda ay dhaaftay marka fursadda ay dhaaftay way oo way calaamadii marka halkaas ay tagtay ka istaag baa lagu yiri qof baa kaa naxsaday markaasaad istaagtay maxaa dhacay baa tiri suuyeen tu aamusan muxuu yidhi waa xeel dagliqa ha marka wuu kuu digay soo ma waar ushu qurux badana baa tiri intaa markaas adaa la yaabay calaamadii meeshay tagtay waa ujeeda marka iyaduna waxaa la dhigay meesha iska jir goorta istaagtay wuxuu ku yiri lama ogola waa xero ciidan ama waa fariisin ciidan way layligaasna marka muxuu noqonayaa in aad markaa ka shaqayso ba maxaa lagu yiri raaci qodobka ku haboon erayada hoose mooye qodobka ku haboon ubo qodobka ku haboon dheg qodobka ku haboon il qodobka ku haboon marka qodobka raacinaysa waxa aad u akhridaa wuxuu wadarba mise waa kali kadib adoo xeerka raacaya qodobka ku haboon raaci waxa ku xiga markaa qaybtan kale iyaduna ah ta hoosta ka xariiq meelayaha iyo tilmaamaha ku jira waxa lagu yiri maska uu la dhac meelayaha ama tilmaamaha ku jira midku yaada go'aansanaya adoo qaacidada raacaya kadibna soo saaraya furaha aqalka dhexdiisa iiga soo saar furaha aqalka dhexdiisa iiga soo saar wiilkaas baa ku yeeray abti hooyo u dhawaaq abti hooyo u dhawaaq shimbirtii korkaaga ka fiiri shantaas baad oo fiirinaya meelayaha iyo waxa ku jira markaa fiirinaysa jaaba u dambayso oo ah qeex erayadan hoos ku qoran erayada hoos ku qoran baa qeexaysa naxwi muxuu yahay qodob muxuu yahay tilmaam muxuu yahay meeleeye muxuu yahay halkaas baa markaa waxa inoo ka eg casharkeennii haadaa wabilaahi tawfiiq